Victor Gyökeres oo daaha ka rogay sababtii uu u diiday kooxihii kale ee xiiseynayay oo uu kaga doortay kooxda Arsenal. Weeraryahanka xulka qaranka ee Sweden Victor Gyökeres ayaa shaaca ka qaaday sababta uu u doortay Arsenal, inkastoo uu dalabyo ka helay kooxo waaweyn oo kale oo Yurub ah. Gyökeres ayaa si rasmi ah qalinka ugu duugay heshiiskiisa cusub ee Emirates Stadium Sabtidii, isagoo dhammaystiray tijaabooyinka caafimaadka ka hor inta aan la shaacin inuu xiran doono lambarka 14-aad. waana lambarkii ay hore u xirteen halyeeye uu ka mid yahay Thierry Henry. Isagoo la hadlayay website-ka rasmiga ah ee Arsenal Khamiistii, Gyökeres wuxuu yidhi, kooxo kale oo badan baa xiiseynaya saxiixayga, laakiin anigu Arsenal baan doortay. Waxaan dareemay inay tahay kooxda ku habboon mustaqbalkayga. Gyökeres ayaa intaas ku daray in wadahadallada heshiiska ay adkaayeen. Ma ahayn heshiis fudud. Waxaa jiray dad warbaahinta la hadlayay mar walba. Waxaan u haystaa inay danaha kooxaha kale ilaalinayaan, laakiin arrintaas waxay keenaysay jahwareer. Kooxda uu hogaamiyey Mikel Arteta ayaa xil ciyaareedkii hore si adag ula tartantay Liverpool, balse waxaa la rumaysan yahay in weeraryahan la'aanta ay sababtay inay kaalinta labaad ku dhammaystaan Premier League. Imaatinka Gyökeres ayaa loo arkaa inuu yahay xalka weerarka ay sugi jireen taageerayaasha Arsenal, iyagoo rajo weyn ka qaba inuu noqdo ciyaaryahan si joogto ah goolal ugu xira kooxda. Warbixintaas xiisaha badanna waxay qayb ka ahayd barnaamijka Bandhiga Ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii uu muuqaalka ku xiiso geliyo, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.